أصحابتي لما توني والسلام مركز الدنيا كقولوا شو ولكن قياس عبد الولي قياس برتك قياس عطنا وقياس تي في نودد بدن بقى يقول هذا عبد الولي محد يقول سوي قياس محد يقول سوي محد أنا كوكارسي أيقون أوين أنا جاي أوين أنا رنت ما أنتي نيشي جينا هذا ويقع على سنين أنا رنت صار رنت مركز نيشي جيانو أنا محيقول كأني سعد ضوبة هذا أما إسكاب الله هذا محاسبة بي أنا رنت نيشي جي معناته وحبدا ما قريت لما تشي جي أنا رنت حينين صار رنتي يعني حيتي هناسي يعني هناسي بان هاي يعني هناسي آدو فوقادي بان هاي sababtoo hinaasi ahay aad waxa ku ogaaday anigoo inta ka yar oo bari inaan aan la hasaawi jiray oo nin baa salaamay intuu meel suuqa iskaga soo baxay anagoo wada socona ay kala tahay buu nin salaam salaam calaykum ku yiri markuu gacantii u dhiibay kala dhaqaaqeen habeenkii anigoo aad u caraysan baa ninkii ugu tagay meeshii xaafadoodii baa ninkii ugu tagay kadibna labadii gacmood buu ka gooyay gacantu ku salaamay oo midigta ahayd iyo tii bidixda labadiiba waan ka gooyay faash baan ka gooyay isbitaalka loola cararay ayadina dib baan ugu soo noqday habeenkii gacantii midig waanu daayay laakiin tii bidix baan ka gooyay sababtoo waa hinaasinimada waxay iga keenaysay tii bidix markaa gooyay waxaan doonayay tan midigta inay quraanka ku akhrisataan doonayay saaruntii ay iskaga noolaato dee wax ku qabsato ayaan doonayay kadib waa la qabtay xabsigaa laga diray Madheera waxaan Madheera ku jiray 3 sanadood iyo 6 bilood kadibna waa laga soo saaray markii laga soo saaray kadib waxa lagu yiri intaad gacanta ka goysay baa lagu yiri ayaa ku sugaysay dakaali guurso markii caawimaadka kale la meheriyay on caaw kala doonay inaan u gurigooda ugu tagaan beerka kala soo baxo ayaan arkay galabnimadii fiidowgii markay ahayd sida qof loo yaqaan maxay tahay markay qof iyo geed la kala garanayo subax salaad ay tahay ma taqaan ay galab tahay oo gabarka dhacay laakiin maqrib laga soo baxay ayaan arkay inaan inaabtigeeda iyadoo meel ku salaamayso maxay tahay assalaamu calaykum isliin gacantii midig aan barigu daayay ku salaamaysa waan iska noqday faashkayga baan doontay inankiina 5 farood hore ayaan ka gooyay waayo marka hore xabsiga wax ku soo gaaday 5 farood hore ka gooyay uu ku salaamaan ka gooyay ayadina waan ku noqday tii midig baan ka gooyay haddana ayadina tii midig baan ka gooyay waxaas oo dhan hinaasinimo ayay u keenaysay tii midig baan ka gooyay ama keenantii waxa la sheegay inay xadiisyada iyo quraanka ay ka dhageysatay radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka iyo Sheekh Dirir ay dhageysato inankiina waxa la sheegay inuu istaanada ee magaalada Burco ku yaal iyo meelaha dadku badan inuu ka dawarsado ayaa la sheegay imkaan ku fiidan waxaan u xidhay wax kala ma hawas qariya si aan dadku yoogaan laakiin waxay ugu soo noqnoqotay inta badan kelmadda maxay Cabdulle ugu guursaday maxay ugu guursaday qiyaas maxay ugu guursaday ugu soo noqotay maanta runta asxaabta u sheegay ayaan markaa ay ka fursaday maanta dad maxaa jira maanta waxa jira mid aan la haasaabo oo maxay tahay aan wada sheekaysanaa jirta inta hameen taan waraysto waxa ku YouTube-rada Soomaalida ya taageerta marka waxaan doonay inay tira adigu qiyaas TV ayaan ku taageeraa in kelmadda ugu tiraadaan sugay laakiin waxa ugu tirin la yaraa CK baan taageeraa bay ugu tiri CK baan taageeraa bay ugu tiri aad baan uga hadalka uga xumaaday CK baan taageeraa bay ugu tiri maxaa markaa way iga caraysisay CK fariin baan halkan uga diray CK waxaan ku leeyahay qaar horaan gacmaha jarnay oo istaanada Burco iyo suuqyada meelaha dadku badan ka dawarsada qaar baan gacmaha jarnay oo iyaguna jooga maxay tahay Hargeysa dhexdeeda taagan qaar baan gacmaha jarnay quraanka iyo maxay tahay xadiista ka bartay masaajidada fadhiyo soo fadhiista iyagoon gacmo lahayn inaad arag gacaliyo hadaa doonaysid inaynu dad caadi wada haano tiriyaasha ka saad u bixinaysid nagadaa hadaa doonaysid ishay kugu daawato mid kamid intaan kala baxayn la yaraan inta cawaran loogu yeero adna carab kanaad ku hadlaysaan ka goyne baro loogu yeero carabi ama carab loogu yeero ama carabi loogu yeerana noo sheeg annaga yeelina waajibkaas qaar horaan gacmaha lagu haajay qaar horaan gacmaha jarnay oo dugtii inaasi ay ku soo xiraan noqdo marka CK marka waxa la CK waxana wax qalad weeyay aniga inay taageertaa bay qiyaas TV adaan ku taageeranay ugu tiraahdaa bay qiyaas oo adaan ku jecelaynaa tiraabay laakiin CK baan jecel reaction wanaagsan ma bixiya dadku ka qosliya waxaas wax aniga aqligayga galayna maaha waa waxaan ka xanaaqay ugu kicinayo dhiigga weeyay walow imkaan sidoo hore dhaamo oo maxay tahay si soo bedelayo maalin badaad markii korodho aan caadi soo yar noqonayo laakiin waxaan wax loo adkaysan karaa sideed maaha CK waxa la CK hadaa doonaysid intaan carabka ka gooyin markaad hadli kari weydo aad reaction samay kari weydo aad ka dawarsatid maxay tahay baan hofiyada ku yaala maxay tafiyeena ku yaala hadaa doonaysid walaal gacaliya noo sheeg annaga waajibkayga gudanayne hadaa laakiin doonaysid rag uu iska caadiyo haday istaawaday noqono sida reaction ka samaysid nagadaa agta u dhig wax yar iska dhaxarad iska bax ila dadka ku daawanaya taayada kamid ah ayadan haddii doonaysan labada indhood mid kala baxdo haddii doonaysan kala baxa weey haddii doonaysan kala bixin caadi noogu ma garat marka maxay tahay qaar imka xitaa la soo hadlay hamileyma ku soo qaldamo telefoon u soo diray ayada ugu tiri mid baa igu soo qaldamay mar baan siraad halka joogaya ugu tago dhigta mudac saa uga geliya ilaa waxaan waxa weey ma taqaan waxaan la yiraahdo maxay tahay
hinaasaha waxaa ka keenaya faraha badan marka anigu doob miyihiis ku tuntay ee hinaasaan isleeyahay yaa dadka layn baan isleeyahay nin doobnimo ku weynaaday mihi doobnimo horaan uga bixilaa marka waxay ii sheegeen doob miyihi ee dantaygu khiliftay taa ogaada walaalayaal aad baa dhibaatooda salaamaya qofka ku meereystaan waxa la dhigtay iyo ishayana kala bixin iska ilaali dhinaca kooma iska ilaali aad baa inuu salaamay dalka soo galay subscribe noo saara si keena runta u sheego hoy aad baa dhibaatooda salaamaya